السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيرت كوسو دواء فلانقين تسامية ما أنت و سبتمبر سغال إلا باتن لابد كون إلا باتنكا. maanta it looks like maanta maalin wild day maalin cajiib u ah scannerka maanta inaba caadi ma aha. waxa hogaaminaya USEG $17 iyo $1 50 ma waa laga hore wax ka hore APM ADAR 10 cent waaye ADAR 10 cent waaye waqtigan xaadirka ah, laakiin wuxuu move gareeyay 591%, not 100%, not 200%, not 300%, even not 400%, or 591 buu jibaarmay, almost 600%. kaas baa hogaaminaya volumekiisa so far saacadda waa 9 wax yar dhiman, waxa 4 million shares baa la gatay. sharekiisa banaankiisa waa 5 million. waxaa ku xigay USEG $17 iyo 16 cent waaye, waa 297% kor u kacay, almost 300%. sharekiisa I think waxaa ka qadan 600 oo kuma meesha sheegay khalad waan isleeyahay. value today waa 2 million oo share. labadan ku xiga waa warrant scrap PED waa 20769%. marka suuqa maanta waa fiican yahay. haddaan ku horumar kan ugu horay APM maanta anigu waan gatay early like $400 baa iga luntay. meel khaldama ka gatay 450 baa iga luntay cabaar ka hor. marka hadda tan VWAP ku hooseeya. VWAP waa $9.94. asana wuxuu maraya $8 iyo 1 cent. markii ugu koreysana maanta wuxuu gaaray $29 buu gaaray. arrinta cajiibka waxa waaye shala suuqa markuu xirmayay $1 iyo wuxuu ahaa iyo 31 cent. $1 iyo 31 cent shala markuu suuqa xirmay waa shalay 4 PM dhaarteed buu ahaa. haddana wuxuu marayaa $8 iyo 15 cent. saacadda marka ee 5 iyo 30 daqiiqana wuxuu gaaray $29. waa cajiib waay. taas waa taas. so APM wuxuu ka ganacsadaa su-aasha taas waay. waa ifeeyay. APM wuxuu ka ganacsadaa shirkadda tan waxa waaye waa healthcare sectorka biotechnology, so it's good to go. waxaa ku xigay USEG waa ujeedaan si xool ugu socdo. waa ordaya kor buu ordaya 18 buu marayaa. shalay suuq markuu xilmay wuxuu ahaa $4 iyo 28 cent. haddana wuxuu marayaa markii uu koreysan wuxuu gaaray markii uu maanta wuxuu gaaray $22. hadda wuxuu maraya $17 iyo 96 cent. VWAP waa 1598. haddaan eegno USEG wuxuu ka shaqeysto USEG waa energy company waaye. waa energy company, waa oil and gas buu ka shaqeystaa. headquarters waa Houston, Texas. saasana good to go waayo. okay, HUSA baa jira isagana oo ka saddexaad hogaaminaya suuqa ah. HUSA waa cajiib ah maanta suubiyey. inkastoo uu mataqaanaa hadda hoos dhac jiro oo hadda wuxuu maraya $2 iyo 89 cent. VWAP waa $3 iyo 23 cent. shalay suuqa markuu xirmay $1 buu ahaa. $1 iyo wuxuu ahaa 12 cent. si halkaas dhinaca midigta uga jeedaan
daar 12 waa shalay markuu suuqu xirmayay mondayda 4 p m maanta markii uu koraysay wuxuu tagay $4.50 uu tagay maanta markii uu koraysay anigu waan gatay HUSA waan gatay dadka ka faa'iideysta ma ahaa movekaas early in the morning ahaa oo around 6 am ahaa maanta saacadii xoogaa ka hor waxaana gatay sheero aad u badan oo marar kala duwana oo muddo 1 minute iyo 10 second u dhexeysa $5,820 ka faa'iiday ma 5,000 iyo adiga markaan baan gatay laba jeer kala duwan isu geyntiina movekan kow iyo movekan labada move baan gatay inkastoo moveka koowaad aan 5,000 iyo boqol iyo xogaa inayd baan filaya aan ka faa'iiday movekii labaadna adiga lacag $700 ku dhawaad baan ka faa'iiday 5,800 bay ahayd inkastoo APM-ka uu 450 iyo 450 iga luntay marka caadi ma ahan maanta kan USEG hadda hoos u dhac baa jira lama gadan kara haddeertan ilaa uu mataqaanaa uu soo uu gaaro VWAP uu dhaafo xafiisadad waxyaalaha maanta cajiibka waa mataqaanaa suuqii weli ma uusan furmin 28 milyan baa ka dhiman waxyaalaha aad cajiibka waxa waaye jaa hore scannerka iyo high day momentumka ahaa oo markuu suuqa furmo saa u buuxi jiray waa hadda daa eegtaan HUSA oo movekii koowaad aan marka kan warhay movekooda ka faa'iido waayo ABM-ka ku xiga fiiris uu busy yahay adamhiisa soo noqday SGLB USEG waa scannerkii suuqa markuu furmo oo shaqada xoog u socoto uu alarm waxaan jiray suuqu intuu furmay buu waxa dhacday wax aad iyo yaab badan oo inaba caadeen oo saacyo badan baa mataqaanaa good news hayay aad u sarkacay marka saa daraadeed inaba caadi ma ahayn maanta waxaan rajeynayaa suuqa markuu furmo inuu kasii fiicnaan doono إن شاء الله تعالى وحن سكون دينا إن الناس عايزين يعصوك خما لوك لا good news وما أنت حركة ما سوق جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته